waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيه حسدني هستريجا يو معلم محمد علي and history from 3 10 كنا كتيرنا و nationalism in Somaliland كارهان the rise of سيد محمد عبد الله حسن بحيتان كي سيد محمد عبد الله حسن ونيجي شيء Somaliland حوجي بنكسر شرحن حسدي تنكوريسي nationalism keedii iyo xisbiyadii ka jiray dadkii xorriyadda u soo dagaalamay iyo ururadii xilligaa jiray ayaynu soo sheegay laakiin casharka muhiimka in la sharaxo u baahan waxa weeye waa taariikhda sayid maxamed cabdulla xasan iyo ciidankiisii la odhan jiray daraawiishta ee muddada dheer ee ilaa 20 sano ingiriiska la dagaalamay kaasaa xusid mudan marka xiisadeennu maanta guud ahaanba waxay ku saabsan tahay soo bixitaankii iyo taariikhdii sayid maxamed cabdulla xasan way sayid maxamed cabdulla xasan wuxuu ku dhashay tuulada la yiraahdo wuxuu ku dhashay meel la yiraahdo Werwid iyo Buuhoodle meel u dhaxaysa ceel biyooda u dhaxeeya Werwid iyo Buuhoodle ayuu ku dhashay sanadku dhashay waxa weeyaan sanadka 1864 He was born in April 1864 near Buuhoodle. Halka waxa ku qoran near Buuhoodle. Laakiin waxa u dhaxaysa baa la yiraahdaa meesha la yiraahdo magaalada la yiraahdo Werwid iyo Buuhoodle dhexdooda. Meesha ku dhashay halkaas ku beegantay. Sidii caadada ahayd bariga qofku markuu barbaarayo oo caruuriya waxa lagu bilaabi jiray ama lagu barbaarin jiray Quraanka. Marka at the age of 7 toddoba jirkiisi he began to learn the Quran ku bilaabay inuu barto ama waxa la geeyay malcaamad macalinkiisi Cabdalla Carus baa la oran jiray baa la yiraahdaa ayuu ka bilaabay Quraanka nin maskax furan buu ahaa dadku isku wada maskax furan isku mid maaha maskaxdoodii 3 sano kadib oo at the age of 10 markuu marayo 10 jirba Quraankii u dhimay and became wuxuu noqonayaa his teacher's assistant عاويه معلنكيس أما ساعدك أما ألف له malcaamadda marka la dhigan jiray macalinku inta sarsaro u dhigi jiray ardayda quraanka wax la waxaan hoosana aliflaha ama qofka quraanka ugu hordhameeyo ayaa maxaan ku raahdaa lagu wareejin jiray isaga u dhigi jiray marka macalinkiisii uu assistant iyo musaacid u noqdayba sanadka 1883 at the age of 19 markuu marayo 19 jir intaana uu waxbarashadii quraanka iyo diintii ku dhex jiray he took the title sheikh waxa uu qaatayba title-ka sheikh malcaamadina isaga la wareegay baa leeyahay oo wuxuu dhigi jiray dadka laakiin ninkani ma doonayo inuu halkan oo kale ku koobnaade oo nin han leh inuu aqoontiisa si kordhisu doonayo then he traveled wuxuu u socdaalay tagay to several areas dhowr meelood wuxuu tagay Harar oo xiliga xaruntii diinta islaamka ahayd ugu weyneed wax laga dhigan jiray Muqdisho Nairobi Sudan intaaba uu maray in search of isagoo raadinaya Lenin aqoon iyo cilmi isagoo raadinay uu baxay dhul badan buu maray isagoo inta aqoon raadinay waxa xusid mudan markuu Sudan wuxuu ka soo qaatay ama uu ka soo helay magaca darfishka ama daraawiishta wuxuu soo bartay ama soo ogaaday taariikhda
ninkii la odhan jiray maxamed almahdi ee ingiriiska kula dagaalamay suudaan muddada dheer aakhirkiina laga adkaaday ee la jebiyey marka isaga ciidamadiisa la odhan jiray daraawiish marka halkaasuu magaca ka soo qaatay marka dambena uu ciidamadiisa ugu magac dari doonaatay sayidka intiina arkaysaa inkastoo sawir dee kamaradeeda toosa aan laga hayn hase ahaatee marka sawir gacmeed lagu muujiyo saasuu u ekaabaa la leeyahy sayid maxamed cabdalla xasan sawiro badan way jiraan laakiin kaasaynu dooranay sanadka 1881 taariikhdiisaan sii waday sayid maxamed returned to his place of birth meeshii uu ku dhashay buu ku soo noqday aaggii uu ku dhashay ayuu ku soo noqday kadib markuu aqoon soo bartay muddo dheer uu maqnaa aan maari halka wuxuu ku guursaday his first wife xaaskiisii koobaad in 1894 saddex sannadood kadib markuu soo noqdo guursaday 3 sannadood kadib he went on pilgrimage xaj ku tegey makuu socdaal isagii 13 sheekh oo kale oo xertiisii ka mid ah and spent wuxuu halkaa ku soo qaatay ama uu joogay about a year ilaa sanad buu joogay carabiya xijaas iyo falastiin iyo dhulkaasoo dhanna wuu wada maray oo intaan aqoon raadis iyo dee ayuu ahaa intii uu joogay maka himet wuxuu la kulmay maxamed saalax sheekh maxamed ama sayid maxamed saalax waa founder ninkii aasaasay of saalixiya dariiqada saalixiyada ilaa sayidku marka dambe u qaadan doono waa aasaasiheedii halkan dariiqooyinka kale sheekh ay ka yidhaahdaan iyagu waxay yidhahdaan qoladan saalixiyadu sayid bale markaa sayid maxamed cabdalla xasan halku ka imanaya waa kaasoo dariiqadiisaa saalixiyada ahayd maka ayuu kula kulmay anjoined wuxuu ku biiray oo uu qaatay dee saalixiya oo dhar madhabtii saalixiyada halkaa waxaa xusid mudan inaan yar kala saarno maxaan ku lahdaa religious sects ama orders in Somaliland madhabihii diineed ee Somaliland ka jiri jiray ama ugu soo horreeyay first religious sects in Somaliland madhabta koobaad qaadiriyahayd xilligaa sayidku soo baxay qaadiriyada aada uga jirtay ama ugu xooganayd Somaliland qaadiriyada waxaa aasaasay nin la yidhaahdo cabdulqaadir jilaani wuxuu dhintay cabdiqaadir jilaani sanadka 1166 meeshuu ka aasaasayna waa ciraaq ama baqdaad ayuu madhabta ka aasaasay waana madhab fidayo dunida islaamka inteeda badan gaadhay way madhabta labaad waxaa la yidhaahdaa axmediya madhabta labaad waa axmediyadana waxaa aasaasay nin la yidhaahdo sayid maxamed alfaasi ayaa aasaasaheeda isagana ninkaas wuxuu noolaa intii ka dhexaysay 1760 ilaa 1837 inta ka dhexaysa ayuu noolaa madhabtana wuxuu ku aasaasay ku sameeyey hadday taa hore ciraaq ahayd tana waa maka iyo xijaas ayuu ku sameeyey way madhabta saddexaad waa tan sayidka uu soo qaatayoo saalixiya ayaa la yidhaahdaa saalixiyada waxaa aasaasiheeda uu ahaa sayid maxamed saalax isaguna wuxuu noolaa intii ka dhexaysay 1853 ilaa 1917 madhabtana wuxuu ku sameeyey ku aasaasay marka saddexdaa madhabood ayaa Somaliland ka jiri jiray aasaasyaashooduna waa kuwa iyo sida bilowga ku yimaadeen kow qaadiriya
asaasaheedii founderkeedu waa cabdiqaadir jeylaani oo ciraaq ku dhintay sanadka 1166 taariikhda miilaadi. Soomaalida laba nin baa soo gaarsiiya la yidhahdaa ama halkan keenay mid waa cabdiraxmaan saylici oo isna ku dhintay gobolkan kilka shanaad la yidhaahdo. waa kan cabdiraxmaan saylici wuxuu dhintay died in 1909 I'm sorry 1883 I'm sorry ayuu ku dhintay halkan 75. ninka labaad ee qaybta koonfurta ama koonfurta Soomaaliya soo gaarsiiyay waxaa la oran jiray waa la yiraahdaa Maxamed Uways ama Maxamed Uways oo isaguna geeriyooday sanadka 1909 waliba waa la asaasinad gareeyay la isaga waa la dilay. marka waa kuwa labada nin ee qadiriyada soo gaarsiiyay Soomaalida dhexdeeda keenay. dariiqada labaad ee xilliga Soomaalida dhexdeeda ka jirtay ama Soomaaliland ma ka jirtay waa Axmadiyada Maxamed Alfaasi nin la dhaaba asaasay oo marka deganaa muddadu noolaana waa 1760 ilaa 1837. dariiqada saddexaad ee u soconay casharkeena gelisay inaynu madhabahan ka hadalnaa waa saalixiyada. Maxamed Saalax baana keenay, Maxamed Saalax baana aasaasay oo marka ku aasaasay. Maxamed Saalax waa ninkan ay kulmayaan Sayid Maxamed Cabdalla Xasan ee dariiqadiisa iyo teachingkiisii wax soo ka soo qaadanayo. waayaan sii wado. Sayid Maxamed Cabdalla Xasan wuxuu tagay Makka iyo Xijaas iyo Falastiin muddo dheer oo ilaa sanad uu soo joogay dhul badan soo maray. wuu ka haray culimadii kale uu raacay xajka isku raaceen. in 1896 sayidku wuxuu ku soo noqday oo uu degay he settled at Berbera soo degay where he began halkaasuu ka bilaabay his campaigns ololayaashiisii against the British rule xukunkii Ingiriiska uu kaga soo horjeeday. Berbera markuu ka soo degayba ololihiisii buu bilaabay uu dadka ku wacdinay Ingiriiska ka soo horjeestaan xukunka gaalada ay diidaan. wuxuu diiday qaadka oo bariga iska caadi ahaadee qoladan qaadiriyada dhexdeeda. wuxuu diiday alcoholka iyo khamriga Berbera laga heli karayay inkastoo inay Soomaalidu cabaynayna caan ku ahayn dana gaaladii dhex joogtay ay ku dhex cabaysay. waxyaalahaas oo dhan buu diiday dadkii uu dhiirigeliyay oo wuxuu la ka kaco Ingiriiska iska kiciya. laakiin dadkii reer Berbera halka deganaa u dhex joogay way ka diideen arrinkaas manay soo dhaweyn aad looma soo dhaweyn. waa halku ka qaadanaya baa la yiraahdaa magaca Damaar Mulla marka dambe Ingiriisku ku bixinayo wadaadkii waalna way sayidku strongly criticized si xoogan wuxuu u dhaliilu uga soo horjeestay foreign influence duufsiga iyo saameyntii shisheeyaha that violated oo carqalad ku ahayd Islaam. he departed intaan halkaa u gudbin Berbera wuxuu joogaa la yiraahdaa ilaa muddo ilaa 3 sano 2 sano meelahaas. ololihiisna muu joojin marnaba. sheekooyinka dee laga soo tabiyo waxaa ka mid ah inuu booqday iskuulku yaala meesha Dhaymoolo la yiraahdo Berbera duleedkeeda sayidku dabeedna ugu tagay carruur yaryar oo agoon iyo derbi jiif iyo u badnaa meesha lagu ururiyay oo shows reer Berbera ma ay ogeynay. iskuulkuna waa iskuul loogu talagalay in diinta Kiristaanka lagu faafiyo oo ciyaalka diinta Kiristaanka loogu dhigo. kadibna iskuulkii oo maalinta fasax ahaa laakiin carruurtii ay joogto laakiin qoladii wax dhigaysa aanay joogin buu tagay baa la yiraahdaa maalmaha ka mid ah. halka sheekada dabeedna inan yar uu la kulmay uu ku yidhi magacayga John baa la yiraahdaa magac noocaas uu sheegtay. beriga horena maxaa lagu oran jiray buu yiraahdaa Cali. markuu yidhi qolamaatiina wuxuu ku yidhi reer fadarkuna waa qoladan baadiriyada ayaa magaciisa looguma yeedhay father la yiraahdaa. waa sheekooyinka adu laga soo wariyo hadday run tahay. way Berbera lagama soo dhameyn beenin ololihiisina halka saameyn badan kuma yeelan. therefore he departed wuxuu tagay iskaga tagay Berbera to the interior xagga iyo gudaha soo kacay hawdka to preach si uu wacdiyo wacigiisa u gaarsiiyo the nomadic pastoralists qoladan xoolo dhaqatada ee reemiga where he could gather
halkaasuu ka urursan karayay ama ka heli karayay dee duufsi badan kumay lahayn meesha oo ingiriisku miyiga iyo dhulkaa xoolo dhaqatada aad umay dhex jirine wuxuu halkaa ka heli karayay large army ciidan aad u ballaaran of about 3000 men oo ilaa 3,000 oo nina of different tribes oo qabaylo kala duwana berberuu ka baxay sheekh buu sii maray burcuu maray hawdkuu saa sii maray mudduu dadka sii wacdiyey halkaan ciidan baa uu ka urursaday markii dambe ciidankiisaana wuxuu marka dambe ugu magac daray dervishes ama daraawiish dervishes baa la dhahaa magaca dervish asal ahaan kelmaddu dervish waa Persian origin word original ahaan waa kelmad Persian word macnaheeduna waxa weeyaan baa la yidhi suufi halka inagu ka nidhaahdo suufi marka maxamed almahdi baa ciidamadiisii ugu magac daray dervishes ama daraawiish sayidkuna waa kan magaca ka soo qaatay suudaan ee ciidankii uu urursaday isaguna ugu magac daray dervishes way ciidankiisii aadka u faraha badnaa 3,000 ilaa 6,000 ilaa 10,000 oo nin baa la yidhaahdo ayuu ugu magac daray magaca dervishes ama daraawiishtii way sii wado sayidku intaa kadib ciidamadiisii wuxuu xarun uga dhigay ama xarunta ugu weyn waxay marka dambe ka samaysteen Taleex waxay noqotay the Eastern Hall meesha ay xoogga ku leeyihiin of the Dervish forces ciidamada daraawiishtu meesha inta badan ay joogi jireen xarunta ku lahayn halkaas ahayd dagaalo badan buu la galay ingiriiska in badan oo kamid ah uu ku guuleystay dagaalkiisa ugu caansan sanadka 1913 ayuu galay dagaalka wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo ama buur la yiraahdo Dulmadoobe waa halkii lagu dilay taliyihii ciidamada ingiriiska oo loo jiray Richard Cofield gabayga halku ka tirnayada Cofield oo jiitay dunida joogeen waa kaas Richard Cofield meeshana burca u dhowdahayo buur la yiraahdo Dulmadoobe ayuu dagaalkaasi ka dhacay dagaal aad u fara badan oo dagaal kasta magac iska laha ayuu ingiriiska la galay in badan oo kamid ah uu ka guuleystay sayidka dagaaladiisa wuxuu ka soo horjeeday ingiriiska wuxuu ka soo horjeeday Talyaaniga koonfurta gumaysta wuxuu ka soo horjeeday Ethiopia laakiin marka dambe sanadka 1905 wuxuu la galay heshiis meesha ilig la yiraahdo ka dhacay heshiiska waxa loo jiray ilig agreement heshiiskii ilig wuxuu la galayaa laba qolo wuxuu la heshiinayaa Ethiopia oo kula heshiinaya inaan dagaalamin sidoo kale wuxuu la heshiinayaa Italy iyo Talyaaniga oo iyagana aanu weerar ku soo qaadin aanu la dagaalamin shuruudna wuxuu ka dhigay in dhulkooda dego oo aan isaga waxba lagu yeelin dhulkooda marka heshiiskaas uu la galay wuxuu ku soo koobun halgankiisa iyo weerarkiisa iyo dagaalkiisa wuxuu ku soo koobayo ingiriiska ku soo koob way intiina arkaysa halkaas waa Taleex qalcadihii sayidka iyo ciidamadiisa ay deganaan jireen weeyaan oo ilaa xaasaska iyo waxa soo dhan baa la geyn jiro meesha daraawiishta dhan baa xarun ku lahayd iska deganaan jirtay Taleex waa taa waayahay during the First World War intii lagu guda jiray dagaalkii koobaad ee adduunka intii lagu jiray the dervishes received waxay heleen Turkish and German support taageerada ingiriiska iyo Turkiga iyo Jarmalku waxay ka soo horjeedaan ingiriiska marka taageeray siiyeen sayidka uu garanaya sayidku waa nin siyaasadda dunida la socdo waa talada cadawgii waa saaxiibka marka iyagu ka dalbaday taageero Turkiguna waa dhulkii ay hore u maamuli jireen ayaa halkan ingiriisku imika haystay Soomaaliland xeebaheeda oo dhan Turkiga hore u joogi jireen xilliga Cusmaaniyiinta Jarmalkuna waa cadawga koobaad ee ingiriiska la dagaalamay dagaalka koobaad marka hubbay u soo rareen aad u fara badan oo doonyo ay ugu soo rareen dabeedna taageero fara badan baa uu ka helayba wuxuu ku dhawaanay marka qaar kood inuu berbera ku soo dhawaado sheekh oo kale uu qabsanay
sayidku sheekho kale uu qabsaday dagaalo fara badan ee ingiriiska uu kaga adkaaday intii ingiriisku ku mashquulsanaa dagaalka koobaad ee adduunka laakiin markii laga soo noqday dagaalka koobaad ee dagaalkii dhammaaday in 1990 the British finally defeated aakhirkii way ka adkaadeen the Dervish forces ciidamadii daraawiishta in a joint land, sea and air operations howlgallo ama weeraro ay kaga soo qaadeen xagga dhulka badda oo ay maraakiib soo istaajiyeen iyo cirka intaaba ingiriisku way kaga soo duuleen sayidka iyagoo dabcan adeegsanaya ciidamo loo kala oo soomaalidii kale ah oo ka soo horjeeday sayidka marka 1920 oo campaignkii ugu weynaaba lagu qaaday waxaana ugu darnaa kadib markii dawladaha lagu duqeeyay Taleex ee xaruntiisii la burburiyay waxaaba lagu sheegaaba waa markii koobaad ee Afrika loo adeegsado dagaal dayuurado meeshii koobaad ee dayuurado lagu duqeeyay ay noqotay Taleex the British success guusha ingiriisku gaadhay was largely due to waxa inta ugu badan mas'uulka ahaa ama ugu wacnaa sida bomber planes dayuuradii wax duqeynay ayaa inta badan mas'uulka ahaa oo dayuurada lagu duqeeyay dabeedna sayidku saasuu ka cararay isaga iyo intii soo hadhay ciidamadiisii saddex xubin u qaybsameen wax dhintay wax baxsaday oo miyigoodii dadkoodii ku noqday iyo wax isaga raacay marka isaga iyo ciidan wataa xagga iyo koonfurta ay u baxeen dhulkan hawdka ama zone 5 ama kilka shanaad Ethiopia ayay galeen sayid maxamed later died marka dambe wuxuu ku dhintay meesha la yiraahdo Imey oo zone 5 kamid ah oo Ethiopia ayuu ku dhimanayaa si caadiyana uu dhimanayaa dagaalada ku geeriyoonay halkaas uu ku geeriyoonay sayidku waxa kale oo iyana mudan in laga jawaabo taariikhdiisa waa taarta iyadoo kooban hal su'aal oo muhiim ah what were the achievements waa maxay guulihii of Sayid Maxamed Cabdulla Xasan guulihiisii maxaa kamid ah dalgooda muxuu ku guuleystay sayidku waa tan jawaabtu halka shan jawaabood baa ku qoran kow Sayid Maxamed created wuxuu abuuray awareness wacyigelin buu ka dhex abuuray of nationalism gobonimo doon iyo xorriyad dirra among the Somali people dadka Soomaaliyeed oo aan beriga aanu kuba jirin dareenka gobonimo doonka xorriyad dir ayuu abuuray dareen iyo wacyigelin in xorriyadooda u dagaalamaan markan dambe xisbiyada iyo ururadu ay sameeyeen waxa lagu halqabsanay sayidki oo tusaale noolo markasta laga sheekeeyo noqday he brought wuxuu keenay aan spread u fidiyay saalixiya in Somaliland dariiqada saalixiyada ayuu isna ku fidiyay Somaliland gudaheeda oo kaanu isagu ahaa ninkii Somaliland keenay he stopped wuxuu joojiyay ku guuleystay inuu joojiyo the spirit of Christianity faafintii diinta Kiristaanka ay ku faafi lahayd in Somaliland carruurtii yarayda lagu dhigayay iskuulkii markaa booqday aan hore uga soo sheekeynay berbera ku yaalay marka dambe reer berbera 10 sano kadib ay ogaadeen meesha in dadka lagu gaalayo 1910 dabeedna reer berbera ma intay iska haysteen maalin ku duulay iskuulkii gubay baadariyadii laayay saas ku xidhmay iskuulkaasi he assembled wuxuu soo ururiyay waa he gathered large army ciidan aad u ballaaran warriors oo dagaalyahan ah of different clans oo qabaayilo kala duwan leh qodobka ugu dambeeya he fought against wuxuu la dagaalamay the colonizers shanta guulood ayaa lagu sheegi karaa guulihii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu gaaray halkaas ayuu ku eegyahay casharkeenu maanta iyo guud ahaan chapterkuba halka ayuu ku eegyahay guud ahaan chapterku marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa
wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weewean mayno wahsan mayno